السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegeystayaal saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkan uga hadli jirnay taariikhda xidiga jimco kastana halkani marka aad ka dhegeysataan had iyo jeer waxaan ku soo qaadanaa taariikh xidig maantana waxaan ku soo qaadan doonaa taariikhda xidiga lagu magacaabo Steven Gerrard horena ugu soo ciyaaray naadiga Liverpool ayaan ku soo qaadan doonaa maanta taariikhda xidiga magaciisa oo buuxa hadii marka aan fiirino iyo taariikhda uu dhashay Steven George Gerrard ayaa markaa la yiraahdaa wuxuu dhashay 30kii May 1980 waa 40 jir wuxuu ku dhashay meesha lagu magacaabo Western Merseyside England haygiisa waxaa lagu sheegay 6 feet 0 inch 1.83 mitir wuxuuna ka ciyaari jiray qadka dhexe marna wuxuu ka ciyaari jiray qadbada dhexe ee difaaca xidigane haatan waa tababare wuxuuna tababare u yahay naadiga Rangers oo markaa manager uu ka yahay dalka Scotland 1989 ilaa 98 naadiga Liverpool ayuu u ciyaarayay 1998 2015 wuxuu ku sugnaa naadiga Liverpool 504 kulan wuxuu dhaliyay 120 gool waa xidig muhiim ah sida strikerka oo kale markaa goolasha u dhaliyay 2015 naadiga LL class ee wadanka Mareykanka ayuu markaa ku biiray 34 kulan wuxuu u dhaliyay 5 gool total ahaan xidigani wuxuu saftay 538 kulan wuxuuna dhaliyay 125 gool 1999 ilaa 2000 xulka England 20 jirada 4 kulan hal gool ayuu u dhaliyay 2014 England 114 kulan wuxuu markaa u dhaliyay 21 gool haatanna waa tababaraha naadiga lagu magacaabo Rangers ee dalka Scotland ayuu haatan markaa yahay haddii aan fiirino waxyaabaha naadiga Rangers markaa haatan uu ka sameeyay ayaa markaan eegi doonaa ninkani wuxuu ciyaaray naadigiisa haatan oo tababaraha markaa u yahay 27 kulan wuxuu guuleystay 24 kulan wuxuu markaa barbaro galay 3 kulan ayuu barbaro markaa galay wax loo geystay oo markaa laga badiyana markaa ma jiraan 67 gool ayuu iskoor ahaan markaa dhaliyay 7 gool ayaana laga dhaliyay ninka lagu magacaabo Steven Gerrard naadiga Rangers 23 dhibcood ayuu markaa nadiifa Premier League wadanka Scotland ku hogaaminaya oo markaa haatan hogaaminaya Scottish Premier League wuxuu gool markaa uu tagay Europe League ayuu markaa u gudbay tababaraha naadiga Rangers oo u gudbiyay unbeaten la qaraacin horyaalkana wuu haystaa 67 gool oo iskoor ahaan markaa ay dhalisay naadiga Rangers oo haatan tababaraha u yahay 7 gool kaliya ayaana laga dhaliyay 23 dhibcood ayuuna leeyahay waxaana markaa la leeyahay ninkani aad buu muhiim ugu yahay waxaana laga yaabaa ayaa leeyahay waa tababaraha bedeli doona sida markaa ay ku riyoonayaan taageerayaasha naadiga Liverpool iyo maamulka naadiga Liverpool waa halyeygii markaa spiritka ku dhisnaa naadiga Liverpool ayaa leeyahay guud ahaan maanta taariikhda xidiga maalinimada jimcada aan soo qaadano oo ku soo qaadanay xidiga lagu magacaabo Steven George Gerrard intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa